الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركورة مقاعد عبد الحين أحمد محمد. waxaan ka hadlayaa ahamiyada ay hooyadu ugu jirto bulshada. Markaan leeyahay ahamiyada ay hooyadu ugu jirto bulshada, waxa laga yaabaa qofka bini'aadanka ah ee 60 ka gaaraya noloshiisa marka laba loo qaybiyo badh inay isagu soo kaabto, taasina waa run ama xaqiiqo dhacda. qodobka koowaad xaqa ay diintu siisay ka ama xadiis ha noqoto ama ayadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha noqoto. waxa laga wariyay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ninu yimiday kuna yiri man ahqa an-nas ilayya ya rasuulallah, aniga agtayda dadka iyama igu khayr badan kaan xaqa siiyanta mudnaanta. wuxuu ku markii koobaad hooyada, mar labaad ku celiyay masuul hadana hooyada, mar saddexaad buu ku celiyay hadana hooyada buu ku celiyay, saddex jeer markaa ku celiyay, mar afraadkii buu ku celiyay masuul marka dambe waa abaha. bari baa wax dhacday asxaabi ayaa hooyadii intuu dhabarka ku qaaday ayaa wuxuu ku geeyay xajkii. dana khaliifadii mid kamid u yimiday wuxuu ku yiri xaqi hooyadii ma guday, waayo dul fog oo xajka ka fog intaan dhabarka ka soo qaaday ayaan xajkii ku geeyay. dana wuxuu ku yiri iska daa intaad soo noolad waxay ku soo qabanaysaa ee waxaan abaalkeedii gudin mar kaliya oo qaydka lagu xambaaray ilmaha intuu u dabcay ay naxday. qodobka labaad caasinimada, qofka hadduu waalidka caasiyo maxaa ka iman kara, hadduu saadeeco maxaa ka iman kara. aan ka horeyna caasinimada, qofku waalidkii gaar ahaan weliba hooyadii markuu adeeci waayo waxa xaqiiqo oo dhacda nolosha intiisa badan inuu madmadow ka galo. sheeko ayaa dhacday inan yar baa wuxuu ahaa qalqaali, markaa aabihii buu ka quustay, dhinac walba wuu xidhay, meel kastuu geeyey, jeelka wuu ku soo xidhay, wuu ka quustay. hooyadiina niyaduun bay u dejin jirtay, marka la soo xidhay iyadaa ka soo furi jirtay jeelka. maalintii dambe ayuu aabihii maxkamadda tegay, waran buu soo goostay in inanka la geeyo Madheera. kabacdi dhowr bilood markuu ku jiray ayay hooyadii ugu tagtay. waxay ku tiri hooyo sidee lagula macaamilaan, si fiican dadku ma kula dhaqmaan, ka waran xaalkaaga, jawiga meesha. wuxuu ku yiri hooyo meesha dad wanaagsan baa jooga, si fiican waa la dhaqmaa, meesha si fiican ayaa la macaamilaa. dadna waxay ku tiri waan tagayaa hooyo garabkaaga. bacdeen wuxuu ku yiri kaal ku dhunkade, saasay ku tiri labada dabnood ayuu ka goostay, uu ka qaniinay ka uu ka goostay. dhiig isagoo dareeraya ayaa waxa ku noqotay u qaadan waa waniiba istaagay way dhimatay hooyadii. kabacdi waa loo imiday, waxa lagu maxay hooyada waxa uu sameysay. wuxuu yiri hooyadii dambigeeda lahayd, waayo markaan dad soo dilo ee la xiro way soo dan jirtay, qaladka iguma oran jirin ka joog, tan aan maanta Madheera lagu xirayna iyada uu sababa. marka sidaa darteed baan u qaniinay buu yiri. haddaynu ka sheekayno adeeca, qofka adeeca wuxuu helayaa markaa. rasuulku waxa laga wariyay calayhi salaatu wasalaam inuu yiri jannadu waxay taalaa labada lugood ee hooyada hoostooda. yacni marka haddii waxay kuu dirto ama sida ay kula dhaqanto ama waxay kuu dirto aad sidooda uga soo baxdo ay markaa kaa faraxdo, waxa laga yaabaa inaad jannada ku gasho. beri baa waxa dhacday inan baa hooyadii aad buu ugu adeegi jiray, wuu adeeci jiray, in badanna wuu shaqayn jiray, hadalkay ku tiraado sideedu uga soo bixi jiray. bacdeen markaa muu arki jirin teknolojiyadii, waxaan muu arki jirin. albaabada Soomaalida inta badan waa la iska furo. dibay buu tegay madaarkii isagoo ka baxaya ayaa waxa jirta caalamka albaab saa u furmaya, markaad saa u istaagto miisaankaagu dareemaya u furmaya albaabkii. waxa dhacday inuu albaabkii galay, markaa albaabkii isagu gacantuu la tiigsaday ama wuxuu ka waday inuu iska soo furo albaabka. dadna albaabkii markuu miisaankii dareemay ayuu albaabkii isfuray. bacdeen hooyadii waxay ku oran jirtay hooyo albaabkaad istaagtaba lagaama xidho, yacni hadday arsaaq tahay, hadday ciidaad wax ka doonayso tahay meelna lagaama xidho.
wuxuu xasuustuun ducadii hooyadii ee ahayd hooyo meelna lagama xidho dadna albaabkaad gashaaba ha ku furmo albaabkii uu baas ka furmayo dadna ragii ka dambeeyay ma u qaadanin inay ku raahdaan waa tiknoolajiyad waraxas ma sheegay rasuul waa ducadii hooyadii taasina waa tii adeeca waalidka haddaba hal abuurka ama suugaanyahanada Soomaaliyeed waxay ka yiraahdeen arinta suugaanta iyo sidii ay u xustay waxaanu ka tilmaan qaadan karnaa abwaanka weyn ee Ilaahay khayr hasiye abwaan Hadraawi oo isagu dhowr laba maansa kale laakiin inta badan waxaad arkaysaa da'yarta ama dadka waaweyn ee hal abuurada ah maasooyinkooda lagama waayo mid hooyo ku jirto koow Hadraawi marka labaad isaguna Ilaahay ha u naxariistee Carays Ciise Kaashe wakiilaha hooyadu waa lama huraan sidoo kale waxa isaguna ka hadlay abwaan Mursal oo isagu inta badan uu hooyada ka sheekeyn jiray maasooyinkeeda una dadaal jiray inta markaynu ka imanno hooyadu waxay ugu jirtaa bulshada kaalin muhiim ah waxayna bartaa ilmaha akhlaaqda iyo dabeecadda wanaagsan soo ilmuhu hadhow ugu barbaaro dad la socon wanaagsan akhlaaq wanaagsan iyo waliba la mucaamalka dadka oo hagaajiyo inta badan markaad aragto caruur yar yar ama aniga hay leekadaan ama hayga weynaadaan oo marka caayaya qof isaga leeg ama ka weyn Soomaalidu inta badan waxay tiraahdaa gurigoodu kale mid beenna ma hataasi yani qofka ay hooyadii ku barbaariso akhlaaqda wanaagsan waxa laga garanayaa caayada ma yaqaano sidoo kale dadka oo afka loo taaga ma yaqaano inta badan akhlaaqdiisu way wanaagsan tahay qofkaas qofka isagoo yar ay hooyadii ka dhimato kaasina sidoo kale isaguna uu dareemaya waxa laga yaabaa kaas marka inaani hooyaba is arago wada wuxuu doono ku kaco ama wuxuu doono uu sameeyo barnaamijka intaas aan kaga qayb qaadanaya Ramadaan Kariim hooyadana ha loogaado ha la ilaaliyo